وراني كان وصل له قراع وحليميا وراح حليميا عاد ما عاد له قراع وياي له بالبالينا ويتهيرك كان نك الداير الدفاعي والله عكس انه بدل وراك خط مسكين سبعه له قراع لا لا روح له لا لا سبحان الله قف كان أداونيسو كلو قراعيو ولبا إلا أميرك كتري لقراعيو وحالية نينكي رق بدن كتل مامي إني يهين دانيرو سيدا موقالك أدكاركي كرتان نين كان وحا لو قراعيا سي حد دافة إلا أميرك كتري وحا صويرري كوحو دمر أو كعريسن إن سوقودا أما سوق أو كحري بل فيري وحكو دعي حاليا وحا أو فديا قوبتاس وإسكا شاهينيا بلسه دمر كان أو عريسن أيا سلما فلان دقال كسيي وحا أي قراعيان إلا أمير كتغي وحا أي قراعيان ولو حوليهي ور إضافة ويل ولكن أهي إيغا قليا سوال بأي أتو تميا ويديدين إن لغا عليو بلسه وقدام بين وحا كبت باديي عيدان بوليس بلسه موقالكاس inta kuma baahin karno oo aaladan ma ogolaanayso qof la garaacay in lagu baahiyo balse xaliye waxa ku dhacay wax caawa dumar badan ay ku qosli doonaan xaliye caawa waxa ku dhacay wax ay ka xanaaqi doonaan rag badan oo lagu tilmaamay in lacagtooda loo daafici doono dad badan ayuu ku tilmaamay inay daanyeero yihiin balse caawa waxa uu arkay qayb ka mid natiijadii uu daanyeer dadku ugu magac dari jiray xaliye ma laga yaabaa go'aankiisa iyo hadalkiisii adkaa inuu isbedelay dumarkan waxa ay sheegeen inaysan dhaafi doonin meel walba oo ay ku arkaanne ay ku soo weerari doonaan xaliye ayaa hadda la dhigay mid ka mid isbitaalada magaalada Nairobi halkaas ayaana lagu dabiibayaa balse waxaan la ogeyn dumarka halkan ku soo weeraray waxa ay rabeen iyo ujeedkooda iyo waxa ay goobtan ka soo raadiyeen balse waxaa loo badinayaa in dumarkan ay ka soo horjeedaan barnaamijkan uu xaliye waayahan waday ee loogu magac daray daanyeer baa tahay haddii aad dumar lacag siiso naag aadan qabin haddii aad lacag siiso daanyeer baa tahay caawa waxaa ka dambeysay in goobtaas aad arkaysaan lagu garaaco dad badan ayaa qosli doono halka dad badan ay ka xumaan doonaan walaalkeena waxaan u rajaynaynaa caafimaad balse waxaan rajaynaynaa in hooshan uu ka gaabiyo haddii kale dumar badan oo caraysan ayaa jiro oo diyaar u inay daafacaan wax walba oo rabitaankooda mar walba waxaan u rajaynaynaa walaalkeena